warmutiyeedkan ayaa ka soo baxay golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo ay ku midaysan yihiin shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada waxaana looga hadlay xaaladda guud ee dalka iyo qodobo kale. warmutiyeedkan oo ka koobnaa 8 qodob ayaa ugu horeyn looga tacsiyay ummadda Soomaaliyeed qarixii dadka badan ay ku dhinteen 14 bishan Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. sidoo kale waxa mahadcelin looga jeediyay ummadda Soomaaliyeed iyo hay'adaha iyo dalalka ka qayb qaatay gurmadka qaran ee loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi. sidoo kale warmutiyeedkaasi ayaa lagu sheegay in xukuumaddu ay ka mashquulsan tahay arrimaha amniga isla markaana ay xoog saarayso siyaasado dadka iyo dalka si kala fogeynaya. sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhawaan isbahaysi ku sameeyay shir ay ku yeesheen magaalada Kismaayo. golaha iskaashiga maamul goboleedyada ayaa walaac ka muujiyay in qorshaha xukuumadda dhexe ay miisaaniyadda amniga iyo tii dawlad goboleedyada loogu talagalay maamul goboleedyada ugu leexisay arrimo siyaasadeed. warmutiyeedkan ayaa lagu sheegay in hanaanka federaalka Soomaaliya ay soo wajahday khatar dhab ah oo keeni karta deganaansho la'aan siyaasadeed. waxa kale oo ay ka digeen faragelinta xukuumadda ay ku hayso maamul goboleedyada isla markaana ay wado qorshe la doonayo in xilka looga tuuro madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Naciim Saciid Saalax, Hon Cable TV, Muqdisho.